بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا magacaygu bilaabo waxa weeye magacaygu waa injineer Saciid Cabdi Saciid Kibaar. Waxaan ka mid ahay macallimiinta wax ka dhigta jaamacadaha dalka khaasatan kulliyadda civil engineering-ka sidoo kale kulliyadda geology-ga iyadana wax aan ka dhigo. Marka hadaan kulli hordhac kooban ka bixiyo barnaamijka ama faculty-kan civil engineering-ka iyo wuxuu ka hadlayo كل civil engineering wuxuu noqonayaa maxay field aad u ballaaran ama fakal aad u ballaaran fakalkaas oo ka hadlaya maxay dhammaan qaybaha nolosha ha ahaato qofku halku geli lahaa ama hoygu geli lahaa sidoo kale wadada u mari lahaa marka uu doon iskuul tagayo kale ama hawlihiisa shaqo u qabsanayo sidoo kale maxay biyo isticmaalayo ama water resource-ka oo isticmaalayo runtii waa field aad u ballaaran oo qaybo badan leh ama engineering in general marka laga hadlayo wuxuu noqonayaa maxay kii ugu horeeyay ama engineering-ka wuxuu noqonayaa fakalkii ugu horeeyay la sameeyay engineering-ka uguna ballaaran uguna maxay fakalada duwan oo ka hadli doona takhasusaadka kala duwan oo leeyahay civil engineering-ku كل أنت عم كقابلنا هردع وليه هي civil engineering أما كلية هذا إنه كهذا الله هير كباهدة الله قبض محي civil engineering كرانتي عاد واد كور قبطان باهدة الله قبض صالحان ودين كوكله المشكلة ده وين نجاي ستقاعد دندل كيرنا سومالان أو المشكلة وين أكاس تحقق الدرينج كودوين كا أمين لقى حاجة بيها سو مشكلة بدن كوهيا أما كوكين كرو ودوين كا هنقطين كو سميان كراك يد الدلاع ممكن لفل كلام صالحان مادة الله استعماله أسفلتيجا sidoo kale waxa jira maxay dhinaca structure ko kale guriyaha waxa jira maxay cracks ama dilaacyo badan oo ku dhaca iyo dadkii oo maxay oo mushkiladahaas ay kamid yihiin maxay xal loo heli karo qofka civil engineering oo xal u heli karo oo noqonaya maxay marka la sameeyo construction-kii maintenance yani inuu qofku repairing sameyn karo ama uu hagaajin karo baahida loo qabo sidoo kale waxa kamid ah baahida biyo la'aanta dhinaca oo noqonaya maxay la sameeyo salahan dam soo kale loo sameeyo biyo xidheen dadku isticmaali karaan seasonska biyo la'aantu dhacdo waxa kaloo kamid ah water distribution in network la sameeyo biyahaasi distribution lagu sameeyo ama caasimada oo dhan loo wada deeqsiyo in la sameeyo distribution taasi waxa noqon kartaa iyadoo baahiyaha loo qabo oo civil engineering ku saabsan yahay oo wadankeena imika distribution ka ama mashruuca biyo ballaarinta oo kale waxa ka shaqeeya shirkado ajaanib sida Ethiopian oo kale waynu u baahanahay maxay civil engineer qof soo bartay ama takhasus ka haysta oo inoo sameeyo barnaamijka ama baahida loo qabo kamid yahay baahiyaha kale loo qabo waxa kamid salahan British oo kale ama wadooyinka salahan wada ogtiin maxay dhinaca Hargeysa hadii laga baxo bariga galbeed waxa jira dooxyo badan oo mushkilado badan keena dadka qaada sidoo kale mushkilado badan u keena dadka qaasoo kale wax noqon kara xalka ama maxay baahida loo qabo in la helo qof civil engineer-na oo sameyn kara maxay British kaasoo kale ama dadka oo sameyn kara box culver ama British-ka types-ka kala duwan British-ka baahiyaha loo qabo civil engineering-ku aad buu badan yahay oo baahiyaha oo dhan nolosha oo dhan waxa ku xiran maxay civil engineering qof walku geli lahaa ku mari lahaa waxyaabahaas oo dhan waxay noqon cabi lahaa biyaha sanitation-kooda waxaas oo dhan waxay noqonayaan inay leeyihiin maxay ku xidhan civil engineering haddii aan u gudbo cidda dhigan karta barnaamijkan ama maxay faculty-kan cidda dhigan karta runtii waxay tahay qofka ka soo baxay marka hore qaybta field-ka science-ka ka soo baxay isla markaana aad u garanay dhinaca calculation-iska sida physics-ka qaybta khaasatan static ama dynamic yani physics-ka cadaan waa laba qaybood inuu yahay qayb dynamic oo wax dhaqaaqaya ama motion aad dhiganayso iyo qayb static oo taagan ama maxay force saameynaya maxay shay taagan aad darsayso marka khaasatan qaybta static-ka inuu qofku aad awood u saaro garanayo sidoo kale dhammaan noocyada xisaabta oo dhan yani maths-ka oo dhan inuu u haysto maxay khibrad aad ama uu aad u garanayo xisaabta ama qaybta mathematics-ka inta dugsiga sare lagu dhigto runtii way kooban tahay qofku haddii uu sii kordhin karo intaan soo gelin jaamacadda ka hor aad buu fiican marka labada subject ee aad u khuseeya ardayda ka soo baxaysa dugsiga sare ugu muhiimsan waxay noqon doonaan physics-ka iyo maths-ka inay aad awood u saaraan waliba maxay maths-ka inay aad awood u saaraan runtii qofku hadduu maths garan yani physics-kuna uu u dhib yaraanaya laakiin labada maado in qofku si fiican u hayo ayaa aad u muhiim waayo wax la dhigay maaha wax la xifdiyo wax noqonaysa maxay calculation in la sameeyo analyzing iyo soo kale in la sameeyo maxay design yani calculation bay noqonaysa waxa la dhigay ujeedada barnaamijkan hadii aynu gudubno runtii ujeedadiisu aad bay u ballaaran tahay
waxa kale oo kamid ah qofka ujeedooyinka uu baranayo inuu noqdo qof anfici kara ama bulshadiisa anfici kara ama wax ku soo kordhin kara ha noqoto dhinaca dhismaha inuu ku soo kordhiyo designs cusub oo maxay maintenance kooda iyo durability kooda aad u sareeyo sidoo kale waxa kamid ah inuu qofkani sameyn karo maxay inuu dhinaca wadooyinka kale ama oo mushkiladaha aad ku badan ka taagan yahay inuu sameyn karo kaas oo kale ujeedooyinku aad bay u badan yihiin yani qofku inuu dhigto inuu dadka bulshadiisa anfici karo oo weaknesseska ama waxyaabaha aynu sheegnay ama mushkiladaha ka taagan dhinaca maxay engineering ama civil engineering inuu xalin karo qofku runaantii fursadaha shaqeyn lagu heli karo barnaamijkan aad bay u badan yihiin haddana dhinaca shaqada eegno oo waad arki kartaa maxay wadankeena maalinta ka dambaysa waxa la furayaa shirkad cusub oo construction taasina waxa keentay baahida loo qabo oo qofna ma sameyn karo barnaamij ama maxay ama shirkad aanu arkin baahida suuqa ee loo qabo runaantii taasi waxay ku cadeynaysaa in baahi aad dadku u qabaan civil engineering oo arkaysa marba in shirkadaha aad u soo badanayaan iyagoo runaantii aad u dalka arki karto dhismaha iyo ka socda sidoo kale dhinaca biyo balaadhinta oo kale dhinaca qaybtaas oo kale iyaguna waxa jira maxay mashaariic aad u balbalaaran oo wada Hargeysa oo dhan lagu wada gaarsiinay biyaha baahiyaha ama fursadaha shaqo aad bay u badan yihiin marka waxyaabaha aynu ka soo hadalay oo dhan haddii aad u baahan tahay su'aashaas u dambaysa noqonaysa waxyaabaha aynu ka sheekaynay oo noqonaya maxay civil engineering waxyaabo leeyahay ama takhasusaadku leeyahay ama baahida loo qabo iyo fursadaha shaqo waxyaabahaas oo dhan qofkii daneynaya isku arkay inuu noqoyahay arday le ku fiican maadooyinka aynu sheegnay physics iyo maths-ka soona qaatay science isku day adigoo art ka soo baxay inaad timaado maxay inaad qaybta engineering ka timaado runtii isku day inaad maxay maadooyinka ku fiican tahay inuu sheegnay waxaad ku soo dhawaatay inaad nagala mid noqoto bahda civil engineering-ka ee jaamacadaha dalka aad bad mahadsantiin